bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada dhammaan asxaabta meel waliba dunida aad ka joogtaan magacaygu waa maxamuud youtube channelkeygana waa injineer maxamuud waa mar kale iyo muuqaal cusub insha allah muuqaalkani waxaa kusoo bandhigi doonaa su-aal iyo jawaabo ku saabsan maadada teknolojiga fasalka afaraad ee dugsiga sare ma ka mid tahay ardada imtixaanka wasaaradda u fadhiisanaysa sanad dugsiyeedkan 2023-2024 haddii ay tahay jawaabtaada haa muuqaalkani adiga ayuu ku anfacayaa sidoo kale waana sanadkii ugu horeeyay ee lagu soo kordhiyay imtixaanka wasaaradda maadada teknolojiga fasalka afaraad ee dugsiga sare muuqaalkan waa muuqaalkaagii haddii aad tahay ardada markaa u fadhiisanaysa imtixaanka wasaaradda waxbarashada sanad dugsiyeedkan 2023-2024 daawade haddii uu muuqaalkan kusoo gaaray sheergare saaxiibada gaarsiisa ay kaga faa'iidaystaan sidoo kale muuqaalkan la garay si ay dhiirigelin inoogu noqoto guuja badhanka subscribe gambaleelkana furo si aad u hesho muuqaalada aan halkan soo gelino beejka koowaad sidaad u jeedaan waxaa halkan ku xusan revision ama dib markaas ugu laabasho questions and answers waa su-aalo iyo jawaabo ayaa halkan inoogu qoran unit 1 waa cutubka koowaad what is technology waa maxay technology horta technology maxaa la technology-ga leenahay is the set of knowledge waa bandhigida aqoonta skills xirfadaha experience waa khibrad and techniques iyo farsamada ama farsamooyinka farowd anagoo marayna which human change waa isbedelka bani aadamka transform sidoo kale anagoo u gudbinayna and use our environment una isticmaalayna deegaankeena in order to create si aan u abuurno tools waa qalabyo machines waa mashiino products markaa wax soo saaraya and services iyo adeegyo markaa that meet our needs and desires kuwaasoo daboolaya baahiyaheena the word technology ereyga technology comes from wuxuu ka imaaday the Greek erey Greek ayuu ka imaaday oo loo yaqaano techno iyo logy ereyga techno macnihiisu waxay tahay markaa technical waxay noqonaysaa markaa waa farsamo art waa farshaxan skill iyo xirfad ayay markaa noqonaysaa ereyga logy wuxuu noqonaa markaa knowledge waa aqoon marka ereyga technology waxaa loo yaqaanaa waa barashada xirfadda ayaa loo yaqaanaa su-aasha kuwaa jawaabteeda waa taasa su-aasha labaad waxaa markaa ku xusan divine waa qeex the time waa ereyga of computer ee computerka maxaa la computerka is an electronic device waa aalad electronic ah ama danabka ku shaqeyso korontada operating taasoo markaa ku shaqeynaysa under the control of instruction waa ilaalinta amarada storage lagu keydiyay in its own memory waa memoriha ama meesha markaas wax lagu keydiyo isaga uu leeyahay su-aasha saddexaad name magacaaw types waa noocyada of computer ee computerka types of computer alena waa noocyada computerka waxaa loo qeybiyaa intaan soo socoto super computer oo ah computers oo ah computeradii waaweyn mainframe computer ayaa jiro waa computerka markaas superka ayuu ku xigaa mini computers ayaa jiro oo ah computeradka yaryarka ah personal computers waa computeradka shakhsiyaadka ayaa loo yaqaanaa su-aasha afaraad waxay u dhacaysaa sida tan right qor ayaa lagu leeyahay definition waa qeexitaanka of computer software maxaa la muxuu yahay softwareka leenahay is the set of instruction waa bandhiga amarada programs waa barnaamijyo that tells kaasoo inoo sheegaya the computer how to perform tasks computerka sida uu u guto shaqooyinka softwareka leenahay ama qaybta barnaamijyada is intangible waa wax aan la taaban karin softwareka ma aha wax la taaban karo ma aha waa waxaan la taaban karin that is to say taas ayaa markaa loo leeyahay it cannot be seen lama arki karo untouched lamana taaban karo but laakiin it is effect saameyntiisa is clearly defined ayaa si cad markaasi ama si nadiif ah loo qeexayaa su-aasha shanaad right qor definition waa qeexitaanka of computer hardware hore waxaan soo baranay software
halkan su'aashan shanaad waxa ku xusan hardware maxaa hardware waa qaybaha muuqda ee la taaban karo. Hardware leenahay is any part waa qayb kasta of computer ee computerka that has a physical structure taasoo leh muuqaal markaasi qaab dhismeed muuqaal ah which can be seen taasoo la arki karo, touched la taaban karo, and picked out pick it up sidoo kale la soo bixi karo. Software-ka lama soo bixi karo laakiin hardware-ka waa la soo bixi karaa. What's information? waa maxay warbixin macallaa. Information alena is data waa xog that is processed taasoo markaa loo habeeyay, converts meaning waa macnaha in loo bedelo to users isticmaalayaasha hab ay fahmi karaan in loogu dhigo. Su'aasha toddobaad, su'aasha lixaad, su'aasha toddobaad, what is data? waa maxay xog. The data component waa isku dhiska saddexaad is data waa xog ayaa leeyahay. And it is the raw material waana shay markaasi ceyrin ah. Xog sideedaba waa ceyrin. Xogta waa la shaandheeyaa oo macluumaad ayaa loo bedelaa si ay u noqoto wax la fahmi karo. That an information system waxaa leeyahay markaa warbixinta habka warbixinta transforms ayaa markaa la gudbinayaa useful information si ay u noqoto warbixin la fahmi karo oo waxtar leh markaa. Su'aashanna waa su'aasha sideedaad. Name magacaab ayaa lagu leeyahay 4 types waa afarta nooc of data ee xogta. Data xogta lagu leeyahay kan waxay ku imaan kartaa into many forms waa noocyo markaasi badan sida waxay noqon kartaa numbers tirooyin ay noqon kartaa xogta. Text qoraal ay noqon kartaa xogta. Pictures sawiro ay noqon kartaa markaa xogta. Sounds sidoo kale cod ay noqon kartaa. Xog haddii la sheego inta nooc oo kaliya ku imaan kartaa. Number waa tiro, text qoraal, pictures sawiro, sound cod ay ku imaan kartaa xogta. Waxaa kaloo inoo xigo lambarka 9aad right qoraal uu leeyahay types waa noocyada of personal computer. Noocyada personal computer. Types of personal computers noocyada kombiyuutarka personalka waxaa ka mid ah laptops ayaa ka mid ah. waa laptopyada markaasi aan isku laaban karno lana kala furi karo ayaa loo yaqaanaa laptop. Sidoo kale waxaa ka mid ah tablets. Laptopska iyo tabletska waxay kala duwan yihiin. Tabletka uu markaasi ka yar yahay computerka laptopka ah, telefonkana uu ka weyn yahay. sidoo kale desktopska ayaa kamid ah waa kombiyuutarka waaweyn ayaa loo yaqaanaa. Su'aasha 10aad name magacaaba lagu leeyahay any 5 input waa 5 kamid ah device of computer ee computerka marka xogta lagu geliyo. Computerka 5 kamid ah xogta lagu geliyo sheeg ayaa la leeyahay waxaana kamid ah keyboard ayaa kamid ah oo looxa furayaasha loo yaqaano ama qaybta xogta computerka laga geliyo ayaa loo yaqaanaa. Mouse waa hagaha isna wuxuu kamid yahay xogta computerka waxa lagu geliyo. Digital camera ayaa kamid ah waa kamarada digitalka ah. Scanner ayaa kamid scanka waxa lagu qaadan karaa sawirada, shahaadooyinka iyo qoraalada ayaan ku qaadan karnaa. Sidoo kale waxa kamid ah microphone isna wuxuu kamid yahay waxyaabaha xogta marka lagu geliyo computerka. Codkan hadda aan soo duubayo saa u jeedaan waxa soo qaaday microphone-ka halkaas marka waxa loo yaqaanaa input ayaa loo yaqaanaa. insha Allah su'aalaha markaas iyo jawaabaha technology-ga waxa markaas muuqaalkan aan ku qaadanaynaa 10 su'aal iyo jawaabo waxayna noqon doonaan kuwa taxana ah oo ilaa iyo dhamaadka waan sii wadi doonaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo. daawade hadii uu muuqaalkan ku soo gaaray like guuji badhanka subscribe gambaleelkana furo si aad markaas aad u hesho muuqaalada aan halkan soo geliyo. waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. la soco muuqaalada xiga ee ku saabsan maadada technology-ga fasalka 4aad ee dugsiga sare su'aalaha iyo jawaabaha ah taasoo markaa ardayda ka caawin karto imtixaanka markaas ee wasaaradda. waa anigoo ah engineer Maxamuud oo idin leh muuqaalkiisa xigo iyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.